munaasabadan oo lagu weyneynayay 55 guuridii ka soo wareegatay markii ay gobolada Koonfureed xornimada ka qaateen gumeystiga Talyaaniga iyo midowgii gobolada Koonfurta iyo Waqooyi waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Hiiraan qaybaha bulshada iyo saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Korneyl Tawane Axmed Gurri taliyaha guutada tobnaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed markay ay arkaan calanka sharafta badan ee dalkeena in ay xurmeeyaan oo ay u istaagaan. waxaa farxad weyn ii ah inaan kelmada ka yiraahdo munaasabadii 55aad ee ka soo wareegtay calanka qaranka ee Soomaaliyeed markii la saaray 1 Luulyo Soomaalida dhamaanteed waa ugu hambalyeynaya hambaliyo markii aan dib ugu laabto calanku macnaha calanka waa macno weyn waa astaanta qaranka Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay in astaan uu ahaado wax yar maaha waxaan ugu dadaalweynayaa dadka dhalinyarada oo aan macnaha weyn ka garanayna waa ma calankan dadku wuxuu leeyahay wax iska yaro mara oo leeyahay waa astaanta qaranimada Soomaaliyeed waxa waaye wuxuu ka turjumayaa dhulka aan leenahay iyo dadka aan leenahay iyo dalka aan leenahay uu ka turjumayaa calankaasi ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa mar walba oo ay arkaan in mataqaana ay u istaagaan oo ay sharfaan oo ay karaameeyaan waa maalinkii aan qaadanay xorriyadda aan ka xorowno cadowga xorriyaddaas maxay ahayd ka hor dadka waxaan maqlayay hees leeyahay dhoomaana la saari jiray dhooma waxaa la yidhaha haamaana la saari jiray macnaha saas waa gumaysiga waddankan joogay 60kii ka hor wuxuu rabo iska samay jiray waxa waaye dadankii waxaa la sheegayay inta dhulka la dhigay xilliyada roobka lagu dul soconay dad la dhibaateynay xorriyadda markii aan helo asiga la saaray calanka la saaray ayaa dhibaatadaas laga baxay. Shamse Ciise Aadan oo ku hadlaysay magaca haweenka gobolka Hiiraan ku nool ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay gacan ballaaran ka geysteen sidii xornimo loo heli lahaa. runaantii sidii uu u sheegay taliyaha haweenka Soomaaliyeed waxay qayb liibax ka qaateen xorriyada caawa loo dabaaldegaayo in aan ka xorowno gumaysiga waana u taaganahay ilaa hadda aad iyo aad dahabkooday u gadeen xorriyaday taagnaayeen raggay guubaabi jireen ilaa haddana waa u taaganahay calanka Soomaaliyeed inuu jiro waana jiri doonaa insha Allah tacaala kuwa ka soo horjeedana sidii hore loogu sheegay ma baqayna anagu Ilaahay aan ka baqaynaa dadka nuucayna iyo xorriyadayna iyo midabkayna iyo wanaagayna bedelaya marna ma ogola doona hadaan haweenka Soomaaliyeed nahay. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan ee amniga siyaasadda mudane Maxamed Ibraahim Cabdullaahi ayaa hambalyo 1 Luulyo u diray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Hiiraan waxa uu kula dardaarmay bulshada ku nool gobolkani in ay gacmaha isqabsadaan oo ay amniga ka wada shaqeeyaan si loo gaaro horumar amni. waxaa halkan tahniyad aad iyo aad qaali ugu diraya dhammaan shacab weynaha Soomaaliya gaar ahaan bulshada reer Hiiraan iyo walaalahan hiil walaal oo ayaga nagala qayb qaatay amniga gobolka si wanaagsan ay u sugeen lama iloobi karo xaqiiqdii walaalahan geesiyaalka ah ee Soomaaliya ciidamadeena iyo ciidanka hiil walaal sida ay isku kaashadeen ee u sugeen amniga gobolka Hiiraan bulshada Soomaaliya qaasatan reer Hiiraan waxaan leeyahay garabka hal isqabsada xaqiiqdii hadii inteena garabka isqabsana waxaan filayaa inaan dhammaan ka adkaan karno oo ayadana aan wax qaban karno. Cabdishakuur Ismaan Ali SNTV Beledweyne.